maayirka degmada Lughaya xubnihiisa golaha deegaanka ayaa booqday deegaanka Howlxuule oo ka tirsan degmada Lughaya. Mas'uuliyiintan ayaa ujeedkoodu ahaa inay soo arkaan bulshada deegaanka Howlxuule oo ah xoolo dhaqato beeraley ah ayaa waxaa saameyn weyn oo baahsan ka soo gaadhay roobabkii sanadihii u dambeeyay ka da'ayay. waxaana qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka Lughaya oo halkaas ku sugnaa fariin u diran xukuumadda iyo hay'adaha ka taageera dhinaca wax soo saarka beeraha waxaana yiraahdeen horta marka hore yaayba maadis kale waxaanu nahay xildhibaanadii degmada Lughaya oo dhameystiran oo hogaaminayo maayirkii degmada Cabdilaahi Cali Nuur Jaxood waxaanu u soo baxnay in deegaamadiina naga doortay aanu ogaano baahiyaha ka jira oo soo horeysano oreegni saaka waxaanu joognaa deegaanka meesha loo yaqaano in Bulxuule biriish bay aan jirtay halkaas saaka aad u jeedaan oo arkaysaan imikana waa doox biriishka waxa qaaday in masiibooyinkii dabiiciga ahaa ee soo dhacay sida duufaantii sagar ayaa qaaday biriishkii halka ay dadkaasi ku waraabsanayeen ay ku tacbeeyeen wax kula soo baxayeen saaka waad arkaysaa waxa meesha yaalo ka muuqda biriish ciid oo ay gacantooda ku dhisteen waa tacabde dadku wax soo saarka looga baahan yahay ee wax dhulka wax kala soo baxayeen dadkani ee horumarka jecel mar walba inay tabcadaan oo dhulkooda wax kala soo baxaan haddii ay waayeen meeshii ay waxay wax kula soo baxayeen ay u dul marayeen maxay wax kula soo baxayaan iyagii laftoodii baa araad deeyo inay dhibaatooyin kale soo gaadho u baahan marka waxaan ka codsanaynaa jamhuuriyadda dawladda Soomaaliland ee madaxweynaha ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi in la soo caawiyo dadka waayay wixii ay wax kula soo baxayeen dhulka ay ula mari lahaayeen dooxa inta la wada arkaysaan itaal ma hayaan ay wax kula ay ku samaystaan biriishka hay'ada ka caawiyay dawladda wixii hore wax loo qabtay duufaantaas agar baa saameysay oo ka qaaday boqolkiiba 70 doox buu noqday dhulka ay deganayeen waana aragnaa halka ay naga dambaysa waxa weeye halkii biyaha ay waxa weeye beeruhu uga cabeen biyaha dooxa ay cabaan oo waxa weeye ay wax kula soo baxaan quutiyooyinkooda si ay uga faa'iideystaan ay noloshooda ugu kaabaan beerahooda halka ay naga dambaysay ciidda aad aragteen ee inta leegay gacantooda ku dhiseen ha ku dhisaane maanta markay dhameystiraan hadduu caawa roob ilaahay uu soo maro subaxa dambe sidaa waxa weeyaan dhulka joogno kale ayay ugu imanayaan dadka inta leeg ee waqtiga inta leeg dhibaatada ku jira wasaaradda beeruhu way iman oo waxaan dhaynaa ma sameyn xukuumaddu wax kale gurmada kama geysanin iyaga isku wada haddii markii hore 200 boqol ay beeri jireen in waxa noqonaysa 200 boqol saddex marka loo qaybiyo qayb inay inta yar gaadho marka waa roob jiri waliba marka uu roobku jirana dee waxba ma gaaraan dadku way sidoo fadhiyaan hoola kalena mare marka waxaan ku boodin lahaa oo noqon lahaa xukuumadda oo dadka hal badbaadiyo wixii karaanka ka golaha deegaan ahaan waanu garab taaganahay maanta nagu warsan soo booqanay xukuumaddana waxaan ku codsanaynaa kulay in qaasata wasaaradda beeraha iyo hay'adda fawqa kulay qaabilsan beeraha inay maxaa ku dhacday gargaar wixii awoodaan ay la soo gaaraan dadkaas oo maxaa ku dhacday laga soo caawiyo haddii biriishkaas loo dhiso wax kale uma baahna iyaga bay noloshooda dabaran karaan laakiin waxa ugu muhiimsan waa biriishkaas loo dhiso wax iyaguna halkaas ka hadla qaar ka mid ah bulshada deegaanka Howlxuule arkaysiin kiinaarka aan dul joogno haddii la fuureeyay ka cabbi jirnay haddii la fuureeyay daladiisi hortiisa baa arkis marka inta ka gudbo waxa kale aan codsanaynaa dalka Soomaaliland ka doonaynaa haday hay'ado tahay iyo haday maamul tahay waxaan ka codsanaynaa in la naga caawiyo dad fara badan baa meesha ku nool ma guuro dad waxa waa beera falato dhibaato badan buu qabaa cidina ma oga alla uma qodna waxaan xukuumadda ka codsanaynaa hay'adaha maxalliga ka codsanaynaa oo kuwa dawliga ka codsanaynaa si degdeg ah in meesha loo soo gaaro oo dadka dhibaatada haysta lala qaybsado
wixii la qaban karo looga qabto ilaahay baa baahida bixiya ilaahay baa gargaar leh laakiin bini'aadankuna wixii guri male waxa weeye deelaalska tari karo in laga taro waa loo baahan walaalaha iyo udooyinka ummada islaamka waxaan ka codsanaynaa gargaar iyo gurmad taageero ah ilaahay haddii loogu dhiibo waxaan loogu daran kiinaalka oo sida u baabasan sanadkiiba aan bishiiba aan 10 cisho dhisno hantiga iyaga iyo xoolaha iyaga wixii laga ka galan haraa wax laga qayb ma jirto gargaar iyo gurmad ka baahan ugu dambeyntii waxa halkaas ka hadlay duqa degmada Lughaya Cabdilaahi Cali Sheekh Nuur waxaanu yiri alxamdulillaah rabbil caalamiin waxa kaleesoo la soo sheegay maanta ku suganahay mashruuca beeraha oo ah mashaariicda waaweyn wax soo saarka ee degmada Lughaya mashruucani wuxuu ahaa mashruucyadii waqtigii dowladda Soomaaliya la aasaasay ilaa maanta bulsho badan ayaa ku noolayd ilaa wuxuu ka kooban yahay mashruucani ilaa 300 beerood inta la isticmaalay 100 beerood weey ee laga beeranayay runtii bulshada 100 beerood ka faa'iideysanaysay ilaa 100 ka badan bay ahayd aad bayna ugu asturnaayeen dhaqaale ahaanna waa isku filaayeen cashuurna dalka iyo degmada way ka soo galaysay khudraddoodana magaalooyinka waaweyn iyo lagu isticmaalayay maantii duufaantu dhacday mashruuca hirgelinle wuxuu ahaa meel dhibaatada ugu badan ay gaadhay halkan aan arkaynaa waddo waxay qabri baxar waa meesha biyuhu uga soo baxaan mashruuca waxaan rajaynaynaa xukuumadda ka codsanaynaa iyo laamaha ku shaqa leh in bulshada la badbaadiyo wax soo saarkooda in la badbaadiyo waxaan u baahannahay maanta bulshadeennu nolol ahaan inay iskaga filaadaan si ay taas ugu suuro gashana meelaha yaryar ee ka itaalka badan leh in wax lagala qabto Saamiya Mahdi Cabdilaahi TV